السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkani waa ahlan channel haddii ay maalin idin tahay ama ay habeen idin tahay waxaan idin leeyahay qof walba u tahay maalin wanaagsan habeen wanaagsan. maanta waa ay ka duwan tahay maalmihii hore. maanta waxaa ila jooga laba gabdhood oo ahlan channel ka mid ah. waa saaxiibada ahlan channel Deeqa Xasan Cumar filan waxaa leedahay meel walba joogtiin tal iyo dibad soo dhawaada. ani adigana welcome ya welcome dhamaan saaxiibada meel walba joogtiin soo dhawaada. maanta waa ay ka duwan tahay maalmihii hore. wax walba waa la keenay fiidiyoyaal badan waa la keenay. maanta waa ay ka duwan tahay. maanta runtii imaatay. maanta waxaa waayay qof ayaa la ogaaday wuxuu yahay qaabkiisa sirtiisa meeshuu joogo wuxuu qabto. youtuber inuu noqdo maxaa ku qasbay? youtube inuu kusoo biro maxaa ku qasbay? sababahaas ayaan idin haynaa. marka hore qofkaas magaciisa haddii aan idin sheego waxaa la yidhaah Dayax Xaaji Tagtag. dadka qaarna waxay u yaqaaniin Dayax Weershe, dadka qaarna waxay u yaqaaniin Nuur Weershe. Dayax Xaaji Tagtag markiisii hore wuxuu ka shaqeey jiray horta markii hore farsamo yaqaan ayuu ahaa jiray. haddii dadkan wax yar aan u sheego wuxuu ka shaqeey jiray idaacadda ciyaaraha FM. wuxuu ka ahaa jiray farsamo yaqaan. weliba farsamo yaqaaniinta waa ay kala yihiin. farsamo yaqaan waxaa jiro leen ab ee mar walba haayo iyo farsamo yaqaankan adoobaxa keedka ku jira camal. Dayaxna wuxuu ahay farsamo yaqaaniinta kuwa loobka wuxuu rabaa ahaado. waa fahantaa u maleeyaha. Dayax Xaaji Tagtag hadda wuxuu noqday youtuber. wuxuu ka shaqeeyaa shirkad la dhahaya Tugaal Media. maalin walba fiidiyoyaashiisa waa aan aragnaa. maalin walba dad isku dhegan iyo waxyaabo ka hadlaa. maxaa keenay inuu qof uu ka hadlo ama uu qof uu ku dhego? كل شيء كي شيء كحما كشيء كي شربضنا كل شيء كي شيء كحما كشيء كي شربضنا. kow marka hore dadka qaar wuxuu ka dhaadhicinayaa waxyaabo aana jirin. tusaale ahaan qof uu fiidiyowgiisa uu soo qaadanaya wuxuu leeyahay qofkan waxaan ku arkay waxyaabo badan cadeemahan ku haya waxyaabahaas cod aan ka haya taleefankayga ku jirtaa. kow waxaas waxaa waaye waxba kama jiraan. maxaa yeelay cadeemo badan aan u haynaa. sababtoo ah nin idaacad ka shaqey waayo xaaladda uu ku jira aan ka war hayno youtube haddii oo imaado waxa youtube looga shaqey kara inay been tahay ama dadka qaar in been laga dhaadhiciyo waxyaabaha beenta in run looga dhigo. wax beena run ma ka dhigi lahayd adi? laakiin views hataa ku helaysid may haddii aad views ku helaysid laakiin waa ka dhigi lahayd. ayaa adigane views haddii lagu helaayane waa macquul. qof walba oo su-aashaas la weydiiyo way samayn kartaa. maxaa yeelay viewska iyo tanaha meesha kasoo gelaayo ayay ka fiirinaya. kow ninkaas waxaa waa beentiisa kow waa been badan yahay. laba markuu meesha uu soo fadhiisto waxaa wejigiisa u malaysaa nin run ama daacadnimo uu hadlaayo. intaas waxaa waxba kama jiraan. maxaa yeelay ninka wuxuu yahay qaabkiisa iyo wuxuu meesha markii hore oo ka imaaday. inta ka horna wuxuu ahay cameraman oo aroosyada tuubo iyo waxyaabahaas. kaamiradaas maanta $2, $3, $4 haddii uu kusoo helo oo cidda uu ku beeli jiray. bishii hadduu uu heliyey $500, $600 oo markii ugu horeysa been abuur uu sameeyo isku keenane $600 ay noqotay. oo been aad sheegaysid ma laga yaabaa inaad beentaas camal aad abuurtid? hebelaasaan ahay hebel wuxuu ahay intuu ka baxay qof wuxuuna ahayn waa ka dhige miya tusaale ahaan anoo taajir faqiir maa iga dhige cilada jirtana waxaa waaye muhiimadda qof walbo inuu fahanya ayaa qurux badan. kow waa inuu marka hore views oo dadka ku helaa. waa daawo kartiin fiidiyoyaashiisa weligiis asoo wax fiican sheegaa ma arkin. kow marka hore dad fiidiyo wax cusub la keeneen ama maskax la imaadeen maskaxdaas uu soo qaadaa qofka inuu eedeeyo waxyaabo. kow midda kalena rufyaan waaya. هوي هوي شرف لو رفياوي شهد دق شيق جو رفياوي شل ميدي بلي رفياوي شيد كلا صعب رفياوي شهو
ويلو شرك أعوذ بالله rufyaannimada kow qof bini aadana oo soo wacato cod oo ka tuubo wuxuu leeyahay waa kana caddeynaan ka hayaa taas waxaa waa qofka kow sharaf darreed ku tahay maxaa yeelay qofka ninka ragga waxyaabaha lagu yaqaano waxaa ka mid ah inuu qofka oo waxyaabaha sirta oo ninka ragga uu ku aamin inuu qariyo laakiin haddii oo video youtube oo weligiis videogaas aad soo duubaysid ku jiraayo cod aad soo qaatid keenaysid wallahi maalin hore midaa ka xumaaday video wuxuu soo qaatay qof oo jiran oo xanuunsan oo wuxuu dhahay codaan ka hayaa qofkaas waa la yaqaanaa marka qof soo jiran xanuunsan cod ka qaatid ma dhihi lahayd qofkaas waa waalan yahay bulshadana ma hor imaa lehed adi marka saaxiibada waxaa u sheegi lahayna kow beentiisa inay badan tahay rufyaannimadiisa ay badan tahay dadkana inuu isku tiro diraadirow haydagin hayduubsan hayduleenin haydooxin haydilin anigoo nool hayduu waa kow dadka horta dadka ugu waaweyn oo turtur media oo jabsadeen asaaba ugu weynbe runta in laysku sheegaa fiicanbe cadowna waa yahay cadow kow youtuberada muqdisho 10 qofooda ugu cadownimo badan 10ka asaa kow ka ah weligaa lambarkiisa xataa tii aan idin sheega maanta wacdiin wallahi inaan been kuu sheegin hebel maata hebel haddii uu ku yaqaano laga yaabo inuu waxeeda wax tan uu kaaliya kuu soo dhaweey laakiin haddaad qof oo taageerayaashaada ka mid ah wallahi inuu kugu taminayo cadownimadaas ma fiicno heerkaasna cadownimadaas ma lagu kaaro ugu dambeyn maxaa leedahay cadownimada qofta ay ka badata beenta ka badatay maxaa dhihi lahayd waxyaabahaas waxyaaba wax lagu helaa maan la iska dhaafay inuu iska dhaafo ninkaasna waxyaaba macquul ah la yimaado nin been loo ma aroosi lahayd adi maya mustaqbal ma la samey lahayn mala sameeyo taas waxay la mid tahay tay xaaji tagtag beenlow waa naagtaana ma ku rabto haye adigane sidoo kale deeqsay dhaxdale nin beenlow ma rabtid nin beelo alheeka al macnaha fiis waa kuu shaqeynaa maxaa maya rufyaana ma rabtid ma rabi rufyaanimo waxaan ku ognahay barada magaalada muqdisho caayo rufyaano waaweyn ka buuxaan halkan aad naga taawanayseen waxaa waaye ahlan channel saaxiibada waxaan marka hore waxaan leenahay subscribe like share comment wa billahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala